إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الكرام الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طونتا أما ثوم بالعربي اللي هذا أما الصومالينا يعني ثوم اسكتري أما ثون أما ستون أنت اللي هذا هو شيء معروف مقعيدا أما اللفظية أن كل واقعنا هذا كلا الدنيا هذا والشيء اسك معروف وقتي هورنا الاستعمال جديد بحاجة اللي هذا تونتا عافمات جود أي يقول هذا آدم يقصد الله يقانو بارتان oo maxaan ku rahaa hore dhac laga sameeyayna lagu ogaaday in ay ku jiraan mawaada oo wax baabi'iso bacteria la dirto sida diphtheria waa mise cudurada la yiraahdo dilaaga oo todobada la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa cudurada la yiraahdo amraad sulla mise tuberculosis ama TB wax la yiraahdo oo kamid maxaan ku yiraahdaa jirooyinka mesela ka soo qaado maxaan ku yiraahdaa la yiraahdo gowracatada arrimaha noocaasi oo kale aadka ugu badan oo bacteriyada noocaasi ama saxaayaadka la yiraahdo bil carabi aad maxaan ku rahaa toonta falgal weyn bay u leedahay. markaan soo qaadano qeybaha la yiraahdo bacteriyada la yiraahdo reer coccus waxaan aan ka ogahay wax la yiraahdo staphylococcus iyo streptococcus. labadaas qeybood waxaad moodaa Soomaalidana aad waxa weeyaan waxyaalaha oo aad yani u rumaysan ayaa waxa kamid bensiliinka ama benshilin waxa la yiraahdo hadba yani arrinta lagu diro ama qof weyn lagu diro in aad maxaan ku raadayay wax tar u leedahay yani ay xaqiiqsan yihiin ay ogyihiin. balse markii la yiraahdo toonta iyo bensiliinka intay wada taagihiin macnaha intay yani ay فعال كيهين بقول كيبا 99 jeer ay ka badan tahay maxaan ku radaa waxtar keeda bensiliin sida darteeda waxa la yiraahdaa bensiliin Ruusiya la yiraahdaa magacahan looga magacaabo bensiliin Ruusiya waa dagaalkii labaad ee adduunka maxaan ku radaa Russia markii dawooyin ka go'een waxay ka mid ahayd bahasha la yiraahdo toonta waxyaalaha oo matana oo la ictimaaday ka mid ahayd oo daw ahaan loo qaato oo cudurrada noocaas oo kale loo qaato. marka la yiraahdo ka soo qaad qeybaha jirka waxa ugu daran tajalludaat dam dhiig inuu guntumo noqdo oo fariisto. dhiigaas markuu fariisto mesela qofkii kabaabi ayaa ku imaanaysa. labo waxa ka imaanaysa circulationkii dhiigiisaas u wareegi lahaana yani uu noqdo mid oo adkaado. toonta waxa weey waxay ka mid tahay waxyaalaha furfuro oo dhiigaasi adkaashaasi ay yani u diido oo hadii goor maxaan ku radaa ay ku dadaasho. toonta waxa kamid waxa loo qaataa dhiigga liya cholesterolka waa baabisa batatan bilkuliya way baabisa. waxa kamid dhiig karka in loo qaato toonta loo qaato balse aan u baahnayn in yani la iska badiyo aan loo baahnayn. waxa kamid mesela inuu qaato qofku waxa rabaa paracetamol intuu la eg yahay habeenkii inuu qaato habeenkii markuu seexanayo iyo salaadii markuu soo tooso in paracetamol lamid aanan badnayn inuu qaato. muhiimadaas ay leedahay waxa la yiraahdaa marka culimada Eeshiyaanka mesela Hindida iyo dadka Eeshiyaanka aadka ugu badan waxay leeyihiin qofka sidee u xanuunsanaya asigoo haysta basashi iyo toonti iyo liinaantiisa u xanuunsada. qofku marka waxa weeyaan waxay ka mid yihiin waxyaalaha oo aadka maxaan ku loo ictimaaday ka mid yihiin. marka mawaad ayaa ku jirta liintaas ay isku bedeshaa waa markii xoogaa matbuuq laga dhigo oo la bedelo oo la kariyo. laakiin marka hore waxay leedahay xaraafa ama kuleel yar ay leedahay haxdaasi marka waxa weeyaan maadadaasi ayaa marka waxay u baahatay matbuuq. culimada oo maxaan ku radaa casrigan ku howlan dhirta waxay soo saareen ay leeyihiin hadii la maxaan ku radaa la kariyo iyo hadii aan la karin isku nooc waayo macna wax yani wax tarkeeda hadba yani maxaan ku radaa hadayba kuwa la kariyay ana ka yani ka falgal badneen waayo. marka mawaada la yiraahdo qunfaca faraha badan leh
carabka gadaashiisa soomaalida cagaga ay tiraahdaa cagaga oo macnaha carabka gadaashiisa nabra yar yar ayaa ka soo baxa nabrahaasi yar yar waxay ka mid tahay waxyaalaha baabi'i ay ka mid tahay baasha toonta la yidhahdo aad iyo aad looma gaaro meelaha bacteria haba yaraatee looma gaaro macnaha meesha ka timaado waxaa dadkii faraacintii hore waxay yidhaahdeen ka soo qaad bahashaasi maxaan ku yidhahda dad oo loogu talagalay inay maxaan ku yidhahda dil la dilo oo haddana lagu dilo sun cirbad sumaysan lagu dilo ayaa la yidhi macnaha dadkaasina tuuge ahayn lasoo qabtay ayaa lagu xukumay marka xukunkaasi marka lagu xukumay in la dilo lagu xukumay ayaa ayagana had iyo goor jeebka waxaa ugu jiray maxay ahayd bahasha la yidhahdo toontaasi had iyo goor daa'imi jireen markaasa suntii cirbadii sunta lagu durayba waxa weye waxba kama ayna qaadin oo waayo suntiya baabi'inaysa ayadaa waxay tahay sun baabi'iyay ka mid tahay bahasha la yidhahdo toonta caanaha dhayda lo-aad waxay ka mid yihiin waxyaalaha sunta baabi'iya sidaa darteeda waxaad ogaanaysaa maadaama ay tahay bahashii sunta noocaasi ay baabi'iso waxaan tijaabo ahaan aan galnay lafteena mataqaana daaridawo ahaan aan samayn ayaa waxaa ka mid ah cudurkan oo aadka maxaan ku rahdaa adduunkii ka bixi waaye oo la yidhahdo sida typhoidkaas oo u kala baxa typhoid salmonella oo waxaa la yihahdaa HEO ay u kala baxaa marka typhoidkaas ama paratyphoid waxaad tidhahdaa typhoid iyo paratyphoid salmonella waxa weeyaan markay oo guud ahaan cudurka la yidhaahdo ayaa waxaad garan kartaa wax badan aan ku tijaabanay oo alxamdulillahi rabbil caalamiin dadkii guryahooda ayagoo joogay ilahi subxana watacala ugu mahad celiyay anigaan lafteyda ayaa tijaabada waxaa ka mid ah kow qofka qaatay ka mid ahaa oo cudurkaasi waxaad moodaa bil inuusan imoogaan jirin oo xididadii ay madoowadeen laakiinse ilaahay fadligiisa marka dambe waxaan arkay 3 xabo toon inaan soo qaato oo yani aan fiiqo markaan fijir kadibna 3 xabo oon xoogaa yar garaaco kadibna ka dhig maxaan ku rahdaa galaas caano dhay lo-aad soo qaato dhayda lo-aad waa garan kartaa aad iyo tifo looma dhaweeyo dhayda lo-aad subaga looma dhaweeyo macsara looma dhaweeyo kalluunka looma dhaweeyo soomaalatid digirta sidaas intaas waxaa waxaad moodaa weliba bahalka la yihahdo oo digaagan oo noocu ahaadaba digaag duureedka ahaado mise digaagan oo belediga ha ahaado looma dhaweeyo isla markii automatic waa kacaya bahalkaas maxaan ku rahdaa wuxuu gaarayaa xad ayuu gaarayaa qofkii marka chlorophenical in lagu wado oo faleebon in lagu wado madax xanuun uusan daynayn waxa weeyaan walaalayaal tijaabadaas ilaahay subxaana watacaala ayaan keed uga dhiganahay maalinta qiyaama ilahay subxana watacala inuu nagu anficee wax la qarinaya ma aha marka waxaa weeyaan qof kastaba gurigiisa soo joogo ayaa waxaa la rabaa 3 xabo toon inta soo qaato galaas caano dhaylo aad ku daro ku qaso kadibna waxa weye uu shaandheeyo markuu shaandheeyo kadib waa cabaya habeenkii markuu seexanayo keliya iska badaa maalintii habeenkii markaa seexanis keliya cab muddo waxaa samaysaa haddii uu muddo yani bahalkaas uu kugu larnaa ilaa 3 toddobaad samey laati koo bil kadib iska baar meel alaal meesha iska baar kow intaasi haddana waxaa kugu darayaa haddaynin subag haddaynin kalluun haddaynin maxaan ku raha digaag ilaan waxaa weye cudur waxaa ka cudur badan cudur dhaktar kuu qoray ku yidhahda waxaan iska dhaaf wixii oo waa wanaagsan dhan iska dhaaf wixii kala bal ka joog galey iyo qabaarna hadda sokorta tan hadda oo maalan oo kasoo qaad qofka sokorowga qaba waxaa leeyahay waxaad waa inaad misige iyo caano geel waa inaad isticmaashaa caanaha geel iyo misiga qofku waxaa kasta asigoo maanta uu sii dhamaado horay usii dhamaado shooq un lagu dilo marka bahalkaas tiifooga ah waxaan leeyahay aniga maxaan ku idhahdaa haddii ilaahay qadaro in uusan qofka daynin waxaas oo dhan 3 macnaha waa inuu qaataa bahaladaas maxaan ku idhahdaa aan soo sheegay habeenkaas uu qaataa ilaahay idinkiisa waxa weeyaan waa arki doonaa wuxuu ka faa'iido biidin allah waay doctor marka waxaad leedahay waxaan xaqiijinay tijaabo aan ku samaynay inuu jiro xiriir dhinaca dawada ah oo ka dhexeeya cudurka tifowga oo aan ognahay in noolo bacteria uu sababo iyo tunti marka bal haddaad faahfaahin ka bixiso tijaabadaas muddo intee leeg ayaad ku guda jirteen tijaabada falilahi alxamdu waxa weeyaan kulley aniga lafteeda markaan kasoo qaaday tusaale ahaan muddo waxaan filayaa ilaa 13 sano ka hor ayuu ugu dambeeyay bahalka la yihahdo tifow ka horna imaba dayn jirinba bilka bil ima dayn jirinba taasi marka waxaa weeyaan tijaabadii koowaad anaaba lafteeda anaaba galayba marka wixii ka dambeeyana intii la siiyey ilaahay subxana watacala ugu mahdiyeen maxaan ku idhahdaa waa in badan ka baaba'ay waa aragnaa annaadiru laa xukma lah shay hadduu naadir noqdo oo qof
ama laba qofood ku tiraahdo aniga waa isticmaalay waa maxaan ku rahdaa iga bixi waayey wala xukun ma aha laakiin waxaa xukunka yani loo badiyaa ama la yiraahdo dhaqaatiirta markay wax baarayaan shayga waxaa la geliyaa 100 qofood la geliyaa 70% haddii noqoto oo ansaxdo waxaa la yiraahdaa cudurkaas waa ansax waa loo qaataa wakadalika bahashaan waxaan aragnay anaga in oo boqolay markii loo fiiriyo in tira xoog badan ay ku caafimaadeen bahashaasi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan leh marka waxa weeyaan waxa muhiimadaasina aan u leeyahay waxay tahay waxa weey wixii la arko oo maxaan ku rahdaa bulshadana wax taraya waa aad iyo aad in loogu faafiyo ayagoo guryahooda joogo oon kaloor firin kale adduunyada isku durin ayaa uu heli kara qofkii maxaan ku rahdaa baa la yiraahdo marka ereygaasi aan ku celcelinayo aan leeyahay kaloor firin kale waxaad ogaataa wax kale maahee 1900 iyo 37 miya Allahu a'lam hada kulay korkama haye ay adduunkaba laga xaarantay oo la yiri macnaha laga joojiyaan ka wada oo leeyahay macnaha taasi inay wax tar aan lahayn la ogaaday oo leeyahay waa internetyada hadii la gala la fahmi kara oo la ogaan kara insha Allah marka waxa weeye taasi marka waxa kamid tahay waxyaalaha guulaha oo mataqaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay noogu deeqay ee haddana la heli karo oo yani shay iska dabiici ah uu yahay marka hadii goor marka shayga dabiiciga ana waa ka wanaagsan shayga oo chemicalka marka insha Allah waxa weeyaan muhiimadaas weyn bay leedahay marka dhiigkarkii hadda tiraahdo oo saas loo qaato cholesterolka ay baabisay mandhicir xanuunka looma gaar sideedaba baashaas oo liida toonta lafteeda mandhicir xanuunka looma gaaro sidoo kale Soomaalida aad iyo aad waxay ugu badan yihiin bahalka liado bahalada baarasaadyada aad iyo aad ay ugu badan yihiin maxaan ku rahdaa isticmaalkeeda toona isticmaalay waa egadiga soo leed maqlaysa marka toonta muhiimad farq weyn bay leedahay nabiga kaleey sallallahu salaam markuu amray wuxuu amray kaliya in hadii ayadaas maxaan ku rahdaa dadka aan deyneen in la geliyo xogaa yar dabaq la geliyo macnaha xogaa madbaqa la geliyo ee la kariyo oo laga dilo macnaha urta faraha badan leh laga dilo intaas oo amray nabiga sallallahu salaam laakiin bil kuliya waxa garan kartaa xaaran kama aha shariicada islaamka in la isticmaalo baashaas xaaran kama aha saadaradeeda waxa weeye qofka masaajidka laga reebay urtaas loogu reebay marka waxa weeyaan waa tii uu ahaa hadii idinka maxaan ku rasanaa oo deynayna hadaba dabaq ha lagu sameeyo xogaa yar oo hala kariyo marka karintaas muhiimad weyn bay u leedahay marka waxaan amri yani kulay oo leeyahay oo tala ahaan ku bixin lahaa toontiyo la tumay in oo raashinka ku bisil sida maxaan ku radaa maraqi iyo yani bariiski ku bisil dusha kor loogu daro oo lagu daboolo aan laga dhigin macnaha karis fara badan aan laga dhigin macnaha lagu dabool maxaan ka wadaa bahasha waxay leedahay saliida aan sheegay oo ay liin la yiraahdo leedahay saliida sayna usoo fiixin saliida di soo fiixdo ilaa waxtarkii ay lahayd xogaa yar waxaad moodaa in xogaa yar hoos u dhacay marka in la yeelo in saas loo jarjaro oo bariiska saas loo dhexgeliyo muhiimad weyn bay leedahay amse maxaan ku yiraahdaa la soo qaado intii la tumo kadibna maxaan ku yiraahdaa maraq lagu darsado laguna daboolo oo kadibna yani maxaan ku yiraahdaa saliideeda meesha ay noqoto zayt thabit saliid ku dhigto oo meesha ku dhigto ay noqoto muhiimad weyn bay leedahay marka insha Allah waxa weeye waxay kamid tahay waxyaalaha guulaha oo maxaan ku yiraahdaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la siiyay ay kamid tahay insha Allah lagu guuleystay hagaag daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka ee telefishinka Soomaali News oo aan toddobaadkan ku qaada dhigayno faa'iidooyinka ay leedahay toonta oo ah maadaama markaasi ay bulsho badan isticmaasho cunadana lagu darsado Dr. Mas'aliyo bulshadana Soomaalidu in badan bay isticmaali jirtay walina waa isticmaashaa dabcan toonta suuqa marka la aaday adeegga la toonana dabcan waxay kamid tahay waxyaabaha haddana dhigi karin ugu horeeya ama labaad marka la soo qaato يعني ما ogaal ay bulshada ogtahay faa'iidadeeda ayaa loo soo qaataa mise dhadhan gaar ah ay cunada u yeelaysaa waa sax bahasha sideeda dhadhan bay leedahay oo markii xogaa lagu daro maraq lagu darsado dhadhan yar bay leedahay oo ka bedel dhadhankaasi waxa la yiraahdaa dheefshiidka ayay waxay socodsiisaa waa dhadhankaasi dheefshiidku socodsiiya labo dheefshiidku wixii socodsiiyana waxa weeye wax ku sii maraayo oo xogaa yar sii degahay inay noqonayso fahmaysaa labo waxa weeyaan arintaasi oo maxaan ku yiraahdaa waxaad moodaa in dadkii carabihii eeshiyaankii iyo laga soo qaatayna waad moodaa xogaa yar in oo toontaas iyo basashaas iyo maxaan ku yiraahdaa laga soo qaatayna waad moodaa dabeeciyan inaan u naqaano ayaa kulay u badan laakiin inaan si caafimaad ahaan u naqaano uma badno waa xaqiiqatan si caafimaad ahaan uma badno waxaa la ogaanayaa in waxtarka ay leedahay ayaa maxaan ku yiraahdaa oo la wadaagin oo ah waliba amraad sulla dadka oo aadka maxaan ku yiraahdaa u dishooday cudurka la yiraahdo TB-da oo aad ugu fiican yahay marka waxa weeyaan lafteeda laga sameeyaa waxa la yiraahdo thumuqal
qalki intii la jarjaro ayada la jarjaro ayaa baasha la yidhahdo qalka lagu darayaa qalkana ereygaas waxaad moodaa Soomaalida wax badan maraan oo meelaha aan ka jeediyo qal in qalitaanka oo yani ay u yaqaano ma ahee balse waxaa la yidhahdaa achete puro iyo achete ayay kala yidhahdaan oo macnaha vigorist macnaha dadka cagaarka iyo cuno iyo loo yani loo gado maxaa kula laga helo marka qalkana waxa weeye insha Allah qaabkiisa iyo noociisa insha Allah waxa weeye hadii Ilaahay qadaro waxa weeye shaashada aad ka arki kartaan hadii Ilaahay idmo oo idin saaran tahay insha Allah marka waxa weeye kaasi qalkaasi waa biyo cad biyahaasi cad waxa weeyaan mararka qaar wuxuu ku imaadaa biyo xoogaa yar casaan ah waxa weeye qal tufaax la yiraahdaa qalkii qal tufaax iyo qal abyad la yiraahdaa qalkaasi marka waxa weeye waxaad garan kartaa waa xoogaa la qamiiriyay shay la qamiiriyay waa qudaartii la qaaday la qamiiriyay ee laga soo saaray marka xoogaa yar dhadhan iyo xax yar ay leeyihiin kaas marka oo laga dhigo toon laga dhigo waxa weeye fawaid fara badan oo leeyahay marka toontii la jarjaro oo la tumo oo qalkaas lagu dhex daro waxa weeye oo haddana raashinkii lagu isticmaalo waxa weeye aad iyo aad waxaad moodaa dadka waxaa la yiraahdaa romaankii bal u fiirso dadkii romaaniinta ahaa markay galayaan bahasha musaaracada ama xibaalka oo la isku garaaco maanta legdanka ah waxa weeye waxay cuni jireen maliya toonta soo qaadan jireen marka hore toonta marka soo qaataan say u kaalmaysan nishaadka lagu kaalmaysan sida hadda macnaha aad garanaysa ciyaartooyda leeyahay waxay qaateen xoogaa daraagiisa qaateen ugu leeyahay bahashaas marka waxa furfurida dhiigga iyo waxay sameynaysaa maxaan ku rahdaa nishaad siyaada ah ay keenaysa marka saa daraateeda waxa weeyaan ma aha macnaa mid sahlan ma aha toonta marka waxaad moodaa sideedaba waxa weeye waxaan naqiin iyo waxaan aqoonba intaba isugu jira marka insha Allah marka waxa weeye intaasi in laga faa'iido aad iyo aad insha Allah yani ku guubaynaa bulshada aqoontay u lahaayeen inay ku sii siyaasana insha Allah marka habka isticmaalka marka ay timaado ma wuxuu ku ekaanayaa ka faa'iideysiga iyo manaaficaadkeedu karis oo kaliya mise si ceeriin ayaa loo bari qaadayaa marka waa sidee habka ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo labada wataan sheegay waa loo qaadan karaa karin waa loo qaadan karaa ayadoo ceelin waa la qaadan karaa مثلا soo qaado toontii iyo maxaan ku raadaya raqaydii iyo liintii dhanaanta ahayd xoogaa inta la isku darsado xoogaa yar basbaas lagu darsado ayaa waxa weeye raashinkii ku socodsiinaysa waa sheeyaasha oo qaaliga ah ay kamid yihiin markaas waxa weeye ruuxi intaas daa'imo xaqiiqatan waxyaalaha oo aan akidahay waxay kamid yihiin qofkaasi uma baahnaay dhakhtar waayo wax kasta difaaciis waxa weeye wuxuu noqonayaa boqol noqonayaa dhinaca waliba marka la yiraahdo ilaa meelo mataqaana oo ugu baahdo suurtagal laakiin qofka oo toonta iyo maxaan ku rahaa basashana aan kala bixiyo biidnillah basasha qofka qaadanaya inay noqonin basal ma tahay inay noqonin basal lama rabo oo salkeeda ballaaran lama rabo basasha waa inay dhuubnataa oo afka horena ka dhuubnataa dabadana ka dhuubnataa taas oo tan aan ka hadlayno oo aan ku leenahay staphylococcus iyo staphylococcus aan leenahay waxyaalaha looga faa'iideysto waa inay dhuuban tahay basashaasi waa inay tahay mid oo xoogaa yar ukun dhexda ka tahay oo hor igaal u kala sibixsada laakiin basal oo salka weyn leh oo mataqaana oo fadhi weyn ma aha taas tan ka hadlayo taas waxaa la yidhahdaaba radiya lilmicda la yidhahdaa caloosha macnaha way dheefshiidka way cuslaysaa waaye ma soconayso inxidaar ma laha waaye marka waa basasha noocan ka hadlay waa noocan basasha noocaasi toonti liin dhanaanti raqaygaas hadduu qofka isku qaato oo weliba raashinka ku cuno maasha Allah waxaad moodaa xoogaa yar dhinaca waliba in uu ka yani ka bogsoonaa biidn illah haddii ilaahay laga helo faa'iidooyinka waxaa kamid qufaca kasafkii dabcan ka dhawaajisay dhalmalaanta xitaa waxaa laleeyahay waad gelaysaa waxaa laga yaabaa inay wax ka qabato haddaan u nimaano marka xasaasiyaddii jirka wax ma ka qaban kartaa doctor waa xasaasiyadda hadday meel tahay ama laba meel ka soo qaad hadday tahay xasaasiyadda dhiigga oo مثلا raaca amase maqaarka maqaarka waxbay ka qabataa xasaasiyadda ilan ayadaas dhowr meel ka timaada waxaa keeni kara parasite keeni kara bahala keeni kara xasaasiyad wax yiraahdo marka waxa weeye inahaas oo dhan waa leedahay ama tan ah falgal oo xagga dhalmada weli ma aanan gaarin oo maxaan ku leedahay cilmi oo thaabit ah oo xaggaasi sugayo weli ma aanan arag oo maxaan ku leedahay xaqiiq ah laakiin se waxa weeye intaas kale in bahalo loo qaato waa ognahay in cuncunkaas loo qaato waa laga warhayaa ayadoo boodra la keenaa ayadoo boodra loo qaataa marka waxa weeye muhiimadooyinka noocaas ah way leeyihiin insha Allah waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka fariinta bulshada aad ugu tagayso insha Allah haddii Allah qadaro maadaama ka hadalka aanu leenahay ay tahay toon marka waxa weeye waxaan dhihi lahaa toon iyo basal iyo liin dhanaan iyo raqay
intaba waxa weeyaan inaad isku darsid oona raashinkii maxaan ku rahda ku qaadatid ha moogaan maxaa yeelay qof kastaba waxaad garan kartaa waxa oo yani uu cuno ayaa caawiya sideedaba dawo haddaad maqashana waxaad afkaas ka cuntid waa waxa afkaad ka cuntid oo maxaan ku rahay ilaahay uu yani kugu salaami yeelo ayaa daawo ah ilaahay wixii daawo kugu dara daawo ah insha allah lagu dadaalo taasi ayaan kaga tagayaa wa sallallahu wasallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam